India waxay ku taallaa koonfurta qaaradda Asia waxayna xuduud la wadaagtaa 6 waddan kuwaas oo kala ah China, Pakistan, Burma, Nepal, Bangladesh iyo Bhutan. India waa dawlad dastuuri ah kana kooban 29 wilaayadood federaali ah. Caasimadeeduna waa New Delhi. Ku soo dhawaada 10 waxyaabood ee aadan hore uga maqlin waddanka India. India waa dawladda labaad ee ugu dadka badan adduunka marka laga yimaado China, waxayna matalaan 6 meelood meel dadka adduunka ku nool, iyagoo tir ahaan ka badan 1 bilyan. India waa dawladda 8aad ee ugu weyn adduunka bad ahaan, waxaana kaliya ka weyn 7 waddan. India dadka ku nool waxay ku dhaqmaan diimo badan oo ay ka mid yihiin diinta Hinduuga waana midda ugu badan. Waxaa ku soo xigto diinta Islaamka oo ah midda labaad ee ugu badan. Diinta Masiixiga, xitaa diinta Yahuudda waa looga dhaqmaa iyo diimo kale oo badan. India waxay xornimadeedii ka qaadatay guumeystihii Ingiriiska. Xornimada India waxay ku timid nin ay in badan xusaan, xitaa waddani haddii la maqlo isaga la soo xasuustaa. Waana ninka lagu magacaabo Gandhi. Gandhi waa nin waddaniyad darteeda u geeriyooday. Waa shakhsigii ka dambeeyay in guumeystihii Ingiriisku uu isaga baxo India. India waxaa ku yaala guriga ugu qaalisan caalamka, waxaana iska leh bilyaneerka Mukesh Ambani. Gurigan qiimihiisu wuxuu ku fadhiyaa 1 bilyan, wuxuuna ku yaalaa magaalada Mumbai ee dalka India. Waa dhismo 27 dabaq ka kooban, waxaana gudaha gurigaas ka shaqeeyay shaqaale ay tiradoodu gaarayso 600. Waana guriga ugu qaalisan caalamka. India telefoonada yaalaan iyo musqulaha waxaa badan telefoonada. India inta qof ay isticmaasho telefoon markii la xisaabiyay waxay noqdeen kuwa ka badan inta musqul ee India ku taala. Waa waddanka labaad ee ugu isticmaalka badan dunida xagga telefoonada. Taj Mahal oo ka mid ah 7 dhisme ee ugu cajiibsan dunida waxaa dhisay boqor muslim ah oo lagu magacaab jiray Shah Jahan, wuxuuna dhisay kadib geerida xaaskiisa uu aadka u jeclaa ee lagu magacaabi jiray Mumtaz Mahal si uu ugu soo xasuusto. Waxaa la bilaabay dhismaha Taj Mahal sanadku markuu ahaa 1631 ilaa 1643. Markii la dhameeyayna boqorka ayaa gacmaha ka jaray injineerkii dhisay si mar dambe dhismahaas oo kale aan dunida looga dhisin. Waxaa sanadkii dalxiis ahaan u booqdo 3 milyan oo qof oo dunida inteeda kale ka yimaada. Waana mid ka mid ah dhismayaasha ugu layaabka badan ee injineerada maanta ka yaabiyay. Familka ugu weyn dunida waxay ku nool yihiin India. Nin leh 39 haween iyo 94 caruur. Odayga lagu magacaabo Chan oo 75 sano jir ah wuxuu madax u yahay qoyska ugu weyn dunida. Waxay ku nool yihiin guri ka kooban 4 dabaq kaasoo leh 100 qol. Familkan waxay degan yihiin magaalo lagu magacaabo Mizoram, xaafad la dhaho Baktuang ee dalka India. Chan wuxuu 1 sano gudaheeda ku guursaday 10 haween markuu jiray 40 sano. Qoyskan waxay leeyihiin sharci u degsan. Xaaskiisa midda ugu weyn waxay qaban qaabisaa shaqaalaheeda la shaqeeya si ay u qabtaan shaqooyinka guriga sida nadiifinta, dhaqidda iyo diyaarinta cunnada. Sidoo kale haweenka kale amarkeeda way qaataan wayna ixtiraamaan. Chan wuxuu wali jecel yahay inuu guursado. India waxaa ku nool oday sheegtay inuusan wax cunin ama cabbin muddo 70 sano ah. Odaygan lagu magacaabo Najani ayaa sheegtay inuusan waxba cunin laga soo bilaabo markii da'diisu jirtay 7 sano. Koox ka kooban 3 takhaatiir ah ayaa odaygan kaxeysay baaritaan ugu soo sameeyaan. Waxayna geeyeen wasbitaal halkaas uu ku jiray muddo 15 maalin. 15 maalin ee uu halkaas ku jirayna wax cunto ah ama biyo ah muusan dalban, taasoo ka yaabisay takhaatiirta. Baaritaano badan kadib takhaatiirtu wali ma fahmin siday suuragal ku noqotay. India kalendarkeedu wuxuu leeyahay 6 xilli: guga, xagaaga, monsoon, xilliga deerta, xilliga qaboobaha iyo jiilaalka. Bollywoodka waa shirkadda labaad ee ugu weyn xagga filim soo saarista adduunka. Kaliya waxaa ka horeyso shirkadda Hollywoodka ee dalka Mareykanka. Waxaa laga daawadaa aflaam in badan oo dadka dunida ku baahsan ay xiiseeyaan.